ciid wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada warka Caawa iyo Dunida qodobada wararka ugu waaweyn aad ku daawan doontaan waxa kamid ah maanta ayaa si weyn looga ciiday guud ahaan dalka Soomaaliya iyadoona madaxda heer federaal iyo heer maamul goboleedba ay ka digeen khatarta xanuunka COVID-19 Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ka soo horjeestay golo wasiir ah oo madaxweyne Dani uu xalay magacaabay Xasaasiya oo kamida culimada Somaliland ayaa isaguna munaasabada ciida awgeed waxa uu baaq u diray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu ugu baaqay inuu joojiyo hantida shacabka ee uu boobayo xaaladda danyarta ku nool dalka Mareykanka oo ka sii daraysa xilli uu saameyn baan u geystay xanuunka COVID-19 qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan barnaamijka Caawa iyo Dunida aanu ku bilownay waxa si weyn looga ciiday guud ahaan gobolada iyo degmooyinka wadanka Soomaaliya waxaana shacabka Soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa ku faraxsan oogida munaasabada Ciidul Fidriga iyagoona isu hambalyeynayay munaasabada Ciidul Fidriga ayaa iyadu ahayd mid ku soo beegmaysa xilli dunidu ay dagaal kula jirto xanuunka COVID-19 dalka Soomaaliyana uu kamid yahay dalalka uu ku faafay xanuunka COVID-19 madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee heer federaal iyo maamul goboleedada ayaa iyagu shacabka Soomaaliyeed uga digay khatarta xanuunka COVID-19 iyagoona ugu baaqay in meel looga soo wada horjeesto xanuunka COVID-19 Soomaaliya ayaa noqonaysa markii ugu horeysay ee ay munaasabada ciida ay ku khilaafto dalka Sacuudiga oo isagu inta badan iclaamin jiray Sacuudiga Qatar Ciraaq iyo Turkiga ayaa iyagu maanta Soomaaliya xilli ay buuxinayeen soddonka maalinta Axadna ay ciidi doonaan iyadoo maalmaha si weyn loo hadalhayay khilaafka u dhaxeeya madaxda sare ee Puntland ayaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu xalay magacaabay golo wasiir oo cusub isagoona ku sheegay warqadda magacaabista inuu la tashi la sameeyay madaxweyne ku-xigeenkiisa taasi bedelkeeda ayaa waxa warqad uu ku cadeynaya mowqifkiisa soo saaray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo sheegay in madaxweynuhu uu khilaafay nidaamka iyo sharciga dastuuriga ah ee u yaala maamulka Puntland isagoona arintaasi ku sheegay in ay tahay waxba kama jiraan iyo been abuurasho lagu been abuuranayo Axmed Cilmi Cismaan Karaash isagoona Axmed Karaash uu sheegay in magacaabistani ay tahay mid khilaafsan nidaamka dastuurka u yaala Puntland isagoona hay'adaha amniga dadka siyaasadda Puntland isha ku hayay shacabka Puntland fariin u diray sheegayna in arintani ay tahay mid sharci darro ah laguna tumanayo sharciga Puntland dhanka kale Axmed Karaash madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa waxa uu intaas ku daray in dalku haatan uu ku jiro xaalad degdeg ah taasi oo ah mid caafimaad iyo waliba mid amni waxaana uu sheegay in haatan aysan munaasab ahayn in la sameeyo xilka qaadis iyo magacaabis taas oo dadku ay dagaal ugu jiraan sidii looga hortagi lahaa xanuunka COVID-19 Xasaasiya oo kamida culimada ugu waaweyn Somaliland ayaa dhaliilo iyo tusaalooyin u soo jeediyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi maanta inaad tiraahdo cid lama tashanayo oo dadkii wax ka dhigi lahaa wadankani aad dibadda u toorto maaha mid wanaagsan waxaan kugula talinayaa in aad golaha wasiirada aad wax ka bedesho aadna magacawdo golo wasiiro oo wax ku sheegi kara wadankani waxa uu leeyahay aqoonyahan aad u tiro badan iyo professoro sidan waxba inooguma shaqeynayaan golaha wasiirada ee hadda jooga wax ka bedel amiirka muslimku waa ka dadkiisa maqla isu ururiya tanaasul badanna la yimaada sida uu sheegay nabigeena calayhi salaatu wasalaam haddii aad doonayso in aad guulaysato dadkaaga ururi oo waxooda cadaalad ugu qaybi kuwii maalkooda iyo hantidooda ku huray ayaad ka soo xidhatay albaabada ayuu yiri Xasaasiya geesta kale Xasaasiya waxa uu ugu baaqay in dhaqaalaha wax laga bedelo isagoona sheegay in wixiiba ay isaga isugu soo biyo shubteen waa madaxweynaha Somaliland hantida ummadda ayaa iska leh dhaqaalaha furfur wixii adiga ayay kugu soo urureen oo waxa loo baahan yahay in dhaqaalaha haddii aadan wax ku soo kordhinaynin in aad raacdo nidaamkii ka horeeyay dhinaca kale Xasaasiya ayaa waxa uu sheegay in rajadii shacabku ay hadda noqotay in loo hanqal taago magaalada Muqdisho
waxauna muuse biixi ugu baaqay in uu dadka rajo u abuuro isagoona dhanka kale ka hadlay arrimaha dhulka oo madaxweynaha maalmahan si weyn looga eedeynayay aadan siira waxa uu xusay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Siyaad Barre uu ka tagay dhul badan oo dan guud ah balse hadda dhulkaasi la boobay dhanka Mareykanka haddaanu eegnana ku dhawaad 39 milyan oo qof ayay ku dhacday shaqo la'aan kadib markii uu xanuunka COVID-19 ka dilaacay danyarta ku nool wadankaasi Mareykanka dhaqaale ahaan dabaqada dhexe ah ayaa waxaa la arkaya iyagoo safaf dhaadheer ugu jira goobaha quudinta kadib markii noloshoodu si degdeg ah isu bedeshay dadkan badankoodu waa markii ugu horeysay ee saf noocan oo kale ah ay nidaamka quudinta ay u galaan maadaama ay dadkani ahaayeen kuwa shaqaysta haddaba daawadayaal intaasi waxaa ku soo afmeeraya war wixii aan idinka hayay guud ahaan geeyiga Soomaalida iyo waliba caalamka intiisa kale warkana waxaa si toos ah idila socodsiinaya anigoo ah Sakariye Waddani tan iyo inta aynu ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan idinkaga tagayaa ciid wanaagsan